أيها الإخوة الكرام، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمع قلوبنا على محبته ومرضاته، وأن يهبنا التوفيق والإخلاص والسداد في القول والعمل، ويرزقنا كمال الإيمان وصدق اليقين، إنه سميع مجيب الدعاء. walaalayaal, dayaxa habeenka 15 ma aragteen? maxaa ka qurux badan, maxaa ka iftiin weyn? nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam ayaa ka qurux badan oo ka iftiin weyn. waxa uu yidhi saxaabi jaliila jaabir ibnu samura, waxa uu yidhi habeen baan soo baxay dayaxu uu 15 u yahay. waxaan arkay dayaxa iyo quruxdiis. nebi moxamed baan arkay calayhi الsalaatu wasalaam. wallaahi waxaan arkay nebi moxamed oo dayaxa ka qurux badan sala allahu calayhi wasalam. dayaxu samadu iftiimiyaa, laakiin nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam samada iyo dhulkaba wuu iftiimiyaa. dayaxu wuu dhacaa, nebi moxamed ma dhaco sala allahu calayhi wasalam. dayaxu nuurkiisu wuu naaqusmaa, laakiin nebi moxamed nuurkiisu ma naaqusmo. dayaxu wuu madoobaadaa, laakiin nebi moxamed calayhi الsalaatu wasalaam ma madoobaado. innahu diyaau laamic wanuuru saatic. waa nuurka nebi moxamed calayhi الsalaatu wasalaam uu ilaahay inoo soo diray. galadu waxay doonayaan nuurkaas sidaa u iftiimaya, barakadaa iyo khayrkaa weyn in ay demiyaan bay rabaan. yuriiduuna liyuطfi'uu nuura allahi biafwaahihim wallahu mutimu nuurihi walow kariha alkaafiruun. ina yarba intuu xaggaa istaagay ayuu leeyahay ceedceeddaas ayaan afuufi oon sidaa ku demin. miyuu demin karaa? nebi moxamed ayaa demin karaya. nuurkaa alla uu soo diray ayaa baktin karaya sala allahu calayhi wasalam. waxay wax ka sheegeen fii shakhsiyatihi nebiga calayhi الsalaatu wasalaam. shakhsiyaddiis, sharaftiisa, cirdigiisa, karaamadiisa calayhi الsalaatu wasalaam. waxay wax ka sheegeen diintiisa nebiga, risaaladuu alla u soo dhiibay, dacwadiis ayay wax ka sheegeen. fidaaka abii wa ummii anta yaa rasuula allah. hooyi iyo aab baan kugu furanaynaa rasuulkii ilaahayow. laakiin ilaahay baa nebigiisa u sheegaya. ilaahay waxa uu nebigiisa ku leeyahay, wakadalika jacalnaa likulli nabiyin caduwan min almujrimiin wakafaa birabbika haadiyan wanasiira. nebi allow adigu uma horaysid, ambiyaadii kaa horaysay, rasushii kaa horaysay, gebi cadow bay lahaayeen. nebi walba cadow buu leeyahay oo mujrimiinta ka mida. ilaahay baana kuu kaalmay nebi allow. ayuha alikhwatu alkiraam, difaacan an difaacayno rasuulkeena moxameda sala allahu calayhi wasalam, nusro aan u nusraynano xabiibkeenna moxameda sala allahu calayhi wasalam iyo diinkiisa. culummada masaajidkan barakaysan waxay qarireen, go-aan ku gaadheen inaan diraasayno oon barano nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam. inaan akhlaaqdiisii, taariikhdiisii, noloshiisii aan barano nebiga calayhi الsalaatu wasalaam. sidaa awgeed waxaan ilaahay rabbi subxaanahu wa tacaala aan baryaynaa inuu culummadeenna, khaasatan culummada masaajidkeenna, inuu ilaahay quluubtooda iyo qubuurtoodaba u nuuro. aamiin dhah. culummada masaajidka, lajnada masaajidka, shabaabka masjidka iyo dhammaantiin ayuha alikhwatu alkiraam. ilaahay rabbi subxaanahu wa tacaala waxa uu leeyahay, warabbuka yakhluqu maa yashaau wayakhtaar. rabbigaa nebi allow
yakhluqu maa yashaa wuxuu doonuu rabbigaa abuuraa wayakhtaar kadibna uu doortaa khalqigaa uu abuuray ayuu ilaahay qaar ka dhex doortaa ilaahay waa طayib walaa yaqbalu ilaa طayiba wax wanaagsan uu ilaahay doortaa ilaahay rabbi subxaanahu wa tacaala samooyinkan ayuu abuuray kor buu ka doortay ilaahay subxaanahu wa tacaala dhulka ayuu ilaahay abuuray albayt اlxaraam ayuu ka doortay maka jannooyinkuu rabbi abuuray wuxuu ka doortay alfirdows alaclaa maalmaha ayuu ilaahay abuuray yowmu carafa ayuu ilaahay ka doortay bilaha ayuu ilaahay abuuray bisha ramadaan buu ka dhex doortay ilaahay habeenada ayuu ilaahay ramadaan ayuu ilaahay bilaha ka dhex doortay ramadaanna wuxuu ka sii dhex doortay alcashru alawaakhir tobanka dambe rabbi wuxuu ka sii dhex doortay habeenka la yidhaahdo laylat اlqadr ilaahay malaa'igtiisuu abuuray subxaanahu wa tacaala wuxuu ka doortay jibriil iyo mikaa'iil iyo israafiil ilaahay basharka ayuu abuuray khalqigan ina nebi aadam wuxuu ilaahay ka dhex doortay alambiyaa ambiyaada ayuu ilaahay ka dhex doortay tiradooduna 142,000 ayay ahaayeen ambiyaada ilaahay wuxuu ka sii dhex doortay rusushiisa 313 rasuul ayay ahaayeen rusushana allah wuxuu ka sii dhex doortay ululcasmi min alrusul kuwa la yidhaah nebi nuux nebi ibraahim nebi muuse nebi ciise nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam ululcasmi min alrusul wuxuu ka sii dhex doortay nebi ibraahim iyo nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam jinsiga ina nebi aadam ayaa allah reer bani aadam ayaa allah wuxuu ka dhex doortay jinsiga awlaadii nebi ismaaciil ayuu ka dhex doortay awlaadii nebi ismaaciilna bani kinaana ayaa laga dhex doortay bani kinaanana quraysh buu ilaahay ka sii dhex doortay qurayshna reer bani haashim ayuu allah ka sii dhex doortay reer bani haashimna maxamed baa ka dhashay sala allahu calayhi wasalam nebi moxamed xaggaasuu allah u doortay nebi moxamed wuxuu ahaa khayru ahli اlardi nasaban cala aliطlaaq dadka arlada ku sugan ka ugu nasabka fiican buu ahaa ugu tafiirta fiican ayuu ahaa dhinaca hooyo iyo dhinaca aabbaba nasabkiisu nebiga waxa uu ku xidhiidhayay ismaaciil nebi ismaaciilna nebi ibraahim ambiyadaas ayuu ku xidhiidhayay haddaan dib u yaro eegno taariikhdaas in yar aan gogasha usii xaadhano duruusteenna soo socota nebi ibraahim calayhi الsalaatu wassalaam waxa uu deganaa bilaad اlciraaq dhulka ciraaq ayuu deganaa nebi ibraahim meel la yidhaahdo ar ayuu deganaa wuu ka hijrooday nebi ibraahim ilaa filistiin ayuu u hijrooday filistiin ayaa waxa uu ka dhigtay qaacidadii meeshii uu dacwada ka wadayey oo ka faafinayey ayuu ka dhigtay nebi ibraahim kadibna wuxuu tegay masar isaga iyo haweenaydiisii saara masarna fircoonkii wakhtigaa jirayey ayaa doonay haweenaydiisa saara inuu kala hadho ilaahay baana uga badbaadiyey waxa uu siiyey fircawn haashir buu siiyey bacd alculamaa waxa ay leeyihiin haashir waa inantii fircawnkii wakhtigaas markuu arkay saara karaamada ay leedahay iyo allah siduu u difaacay ayaa waxa uu siiyey gabadhiisa si ay ugu adeegto sulaymaan almansarfuuri ayaa hadalkaa taxqiijiyey
nebi ibraahim calayhi الsalaam filistiin buu dib ugu noqday haweenaydii haajar ayuu guursaday waxay u dhashay nebi ismaaciil bay u dhashay calayhi الsalaam saaro ayaa ku hinaastay ilaahay baa waxa uu amray in uu haajira ama haajir labadaba waa la yidhaahdaa in uu haajir iyo inankiisa ismaaciilba inuu geeyo dhulkaa iyo maka meesha la yidhaahdo inuu dejiyo taasuu ilaahay amray nebiga maka ayuu keenay maka waa cidla waa meel saxraaya lama degaana weeyaan maka ayuu keenay maka waa cidla waa meel saxraaya lama degaana weeyaan meel yaroo tuura ayaa jirta bes wax biyo ama jiraan wax dadi ma degana wuxuu u wadaa nebi ibraahim in yaroo kiishoo timira iyo weel biyo ay ugu jiraan ayuu u wadaa ismaaciil waa yar yahay naasku jaqaa xagga cinda albayt alxaraam meesha cidlada ee weli aan waxba laga dhisin ee tuurtaa yar agtiisa ayuu nebi ibraahim soo dejiyey haweenaydiisii haajir iyo ismaaciil inankiisi nebi ibraahim amar buu ilaahay siiyey dhaqaaq baa la yidhi noqo xagga iyo filistiin ku noqo wuu dhaqaaqay haweenaydiisii baa ka daba dhaqaaqday haajir yaa ibraahim ayna tadhab xaggee tegaysaa ad nooga tegaysaa meeshan cidlada oo qofna una joogin wax la jooga male waa cidla amar rabbi ayuu qaadanayaa dhaqaaq baa la yidhi ka dhaqaaq wiilkaagan iyo reerka ka dhaqaaq bal suuradeyso ayuha alakhu lmuslim nebi ibraahim wuxuu ahaa khaliilullah ayuu ahaa da' buu ahaa xoolo badan buu filistiin ku lahaa lo' badan dacwadii isagaa nebigii joogay oo dacwadii ayaa la amray caruur male ilaahay buu beriyey ismaaciil baa la siiyey isagoo oo da' markaasuu ilaahay wiilkan iyo haweenaydaadan haajar ba qaado maka tag cidlada kaga imo amar qaado xaggaasuu kaga tegay way daba orday haajir iyada oo le xaggeed nooga tegays ma ilaahay baa ku amray allaahu amaraka bihaada nacam buu yidhi haa ilaahay baa i amray idan laa yudayicunaa xasbii bay na dayici maayo ilaahay hadduu ilaahay sidaa uu ku amray uu nagu filan yahay rabbi subxaanahu wa tacaala riwaayo kale waxaa ahayd radiitu raali baan nahay taragtanaa ilaa kaafin mid nagu filan ayaad nagaga tagtay kadib iyadii dib bay u soo noqotay nebi ibraahim calayhi الsalaam isna waa sii dhaqaaqay meel yar ayay samaysatay cariish yar oy hadhsato nebi ibraahimna markuu ka fogaaday waa meel saxraaya oo lama degaanah ayuu meel yaroo taaga iskor taagay markaasuu soo eegay ilmihiisii quraad iyo haweenaydiisii cidlo u dhigay amarka rabbi isaga oo lilmaynaya ayaa waxa uu lahaa oo qacmihiisa kor u qaadaya rabbi innii askantu min duriyatii biwaadin gayra dii zarcin cinda baytika almuxaram rabbanaa liyuqiimuu الصalaaة fajcal afئidaة min الnaasi tahwi ilayhim warzuqhum min الhamaraati lacallahum yashkuruun ilaahayow waxaan dejiyey reer duriyadaydii iyo xaaskaygii waxaan dejiyey meeshaa cidlada ah webigaa cidlada ah embiye iyo wax mudha iyo wax khayra iyo dadna ayna meeshaa joogin ayaan beydkaaga agtiisa sidaad ii amartay ilaahow waxaan xaggaa u dejiyey inay tukadaan oo cibaadaystaan oo ay khayrka badsadaan ilaahow dadka xaggaa u soo jeedi ilaahow mudho oo dhanna ku arsaaq ayuu lahaa ummu ismaaciil waxa ay bilowday inay wiilkeygii yaraa ay naaska muujiso biyahan ay cabto timirtan yarna ay cunto
biyihii wuu ka dhammaaday, timirtii way ka dhammaatay, way haraaday, wax caana anaaskii ma keenin. ismaaciil calayhi salaam wuu haraaday, wuxuu bilaabay inuu ooyo oo lugaha dhulka la dhaco. waxay karaahaysatay, biyo uma helayso, waa meel saxraaya, xaggee biyo uga keeni? dad meelahan kama dhowa. waxay yaqiinsatay inuu ilmahani khalaas halaag u dhow yahay oo halaagsamayo. waxay tidhi intaan agtayda uu ku dhiman laha bal meelaha biyahan uga raadiyo oo han doondoono anoo maqan ha dhinto. xaggaa iyo waxay u oraday buurta Safa la yidhaahdo, way iskortaagtay inay meelaha wax ka aragto. waxba way arki weyday, way soo oroday xaggaa iyo inankaygii u soo oroday, xaggaa iyo Marwa ayay oroday. 7 goor bay sidaa usii oroday oo u soo oroday. wax shanqadha way weyday. mar walbana inankayga Ismaaciil baa u imanaysay, way eegaysay iyadoo oo xaaladdaa ku jirta oo dhibaataysan ayay shanqadh maqashay iyo cod. iyadoo nafteeda la hadlaysa waxay tidhi sah aamus aamus, shanqadh baan maqlayaa. waxay aragtayba malag, riwaayo kalena malaku Jibriil ayay aragtay oo u dhawaaqay, man anti, ayaa tahay adigu? waxay tidhi haajir baan ahay, ummu walad Ibraahiim ayaan ahay. waxa uu ku yidhi Ibraahim ayuu inigaga tegey, ayaa iniga mas-uula? waxay tidhi ila allah, ilaahay buu inaga tegey. waxa uu ku yidhi idan rabbi wuu inagu filan yahay. baadkiisuu ku dhuftay culimmada qaarkood yidhaahda, riwaayo kalena Jibriil baa lugta ku dhuftay ka yar lugtiis. meeshii Zamzam baa ka yimid, biyaha Zamzamka ah ayaa ka soo booday. ummu Ismaaciil way yaabtay, biyo soo boodaya, waa meel saxraaya, dhagax adag umaa meesha jira. waxay bilowday inay sii qodo oy biyaha qabsato oy dhaansato weelkeygii yaraada haysatay, iyada oo ka cabsanaysa inay biyahani ay ka noqdaan oo cabbaysa. ibn Cabbaas waxa uu yidhi, nebigaa yidhi sala allahu calayhi wasalam, yarxamu allahu umma Ismaaciil, allaha u naxariista buu nebigu yidhi hooyadii nebi Ismaaciil, low tarakat Zamzam, riwaayo kale low lam tagrif min almaa, biyaha haddayna ayna darsan, kaanat Zamzam caynan maciina, biyaha Zamzamku waxay noqon lahaayeen webi socda ayay noqon lahaayeen, il durdurayso oo socota ayay noqon lahaayeen, ayuu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam. way ka cabtay, wiilkeygii yaraana naaska ayay muujisay, canaa ka yimid. waxa uu malagii ku yidhi laa takhaafi dayca, inaad dayacantid ha ka cabsanin. xaggana waxay noqon doontaa meeshan aad joogtid baytullah, beytkii ilaahay buu noqon doonaa. waxaa dhisi doona wiilkan yar iyo aabihii ayaa dhisi doona. markaasaa waxa ay ku tidhi basharaka allaahu bikhayr, allaha khayra kuu bishaareeyey. aad bay raalli u noqotay oo u faraxday, ilaahay baan ku mahadis. iyaga oo xaaladdaa ku jira oo biyihii ay heleen ayaa waxaa yimid meeshii 2 wiil oo awr ka lumay raadinaya, oo camaaliiq ayaa la yidhaahdaa. awr ka lumay ayay raadinayeen, way haraadeen. waxay arkeen meeshaas fog oo shimbiro ay ku wareegayaan ayay arkeen. way isweydiiyeen, meeshan cidlada ah shimbiruhu waxay ku wareegaan meel ay biyo jiraan, maxaa inooga dambeeyey? iyakuna waxay degan yihiin xaramka agtiisay degan yihiin, meel u dhow Carafa ayay degan yihiin. way soo ordeen, meeshii bay yimaadeen. waxay arkeen
biyihii meesha jiray waxay arkeen, waxay soo kor taageen bay culimmadu leeyihiin buurtan abi qubays la yidhaahdo. markaase waxay arkeen biyihii iyo ismaaciil iyo hooyadii, markaase u yimaadeen. waxay ku yidhaahdeen xilli maad meesha soo degteen oo biyahan ayaa iska leh. waxay ku tiri biyahan aniga iyo wiilkaygaa leh. ilaahay baa siiyey. waxa ay ku yidhaahdeen labadii ayaa inii qoday. waxa ay ku tiri suqyan min allah, waa waraabin ilaahay una siiyey. waxay garteen inay xaq tahay. wax qodi kara meeshan ma jiro, biyahan waraabin kara ma jiro oon ilaahay ahayn. way noqdeen, qoomkoogii bay dib ugu noqdeen iyagoo u bishaaraynaya oo u sheegaya. nebi ibraahim calayhi الsalaam mar walba waa u iman jiray, bishiiba mar buu u iman jiray. wiilkii ismaaciil waa koray calayhi الsalaam, 13 jir ayuu gaadhay. mar kalaa la imtixaanayaa nebi ibraahim calayhi الsalaam. imtixaankii hore uu ku guulaystay, cidladuu dhigay. waa sii weynaaday nebigii. inankiisii yaraa buu u yimid oo 13 jira. aad buu ugu farxay. amar rabbi ayaa u yimid. maxaa la yidhi inankaagan aad arkaysid ee kuu shaqaynaya ee ku agboodboodaya aad ku faraxsan tahay, qaal oo qal baa la yidhi, ayaa qalaya. waa nebi ibraahim. middi baad u qaadanays, qof kale ma qalaya, adaa qalayaa la yidhi. qacantaadaad ku qalays. waa inankii quraatullah. waa cidla, waa da', waa bannaan. iimaanka nebi ibraahim u fiirsa calayhi الsalaam. iimaanka nebi ibraahim u fiirsa calayhi الsalaam. inankiisii buu weydiiyey, uu u sheegay. weydiin ma jirto meesha, lama tashanayo. aabba waxaa la i amray inaan ku qalo, ee niyadda hagaaji, ee u diyaargarow. ibn cabbaas waxa uu leeyahay riyat اlambiyaa, waxay ambiyadu ay arkaan ee hurdada ay ku arkaan waa xaq, waa waxyi. inankiisii buu la hadlay. fandur maada tara. qaala yaa bunaya, ilahay waxa u leey falamaa balaga macahu sacي, markuu gaadhay wakti 13 jir bay mufasiriintu yidhaahdaan. inankii oo ordaya oo qurux badan oo u arkay, ku farxay. qaala yaa bunaya inii araa fi اlmanaami anii adbaxuk. waxaa la i tusay oo la i amray inaan ku qalo inankaygiiyo. fandur maada tara. diyaargarow. maxaad u malayn? hadal kale ma jiro. siduu amarka u qaadanayo daawo ilaah. waa walad uu ku rabeeyey cala اddiini wالطaaca. qaala yaa abati ifcal maa tu'mar. waxaa lagu amray amarkaas fuli aabbo. satajidunii in shaaء allahu min الصaabiriin. hadduu ilaahay yidhaahdo waan ku sabri, waan adkaysan oo waan ku sabri. ibn cabbaas waxa uu leeyahay markuu nebigii uu doonay inuu inankiisa u qalo oo mididii u qaatay, uu xidhxidhay, uu dhinaca midig u dhigay, ayaa waxa uu yidhi aabbo xadhiga igu adkee, inaan dhaqdhaqaaqoon adkaysan waayaa laga yaabaaye. xadhiga igu adkee aabbo, maradana iska hagaaji, ayuu dhiigga kugu daadanin. hooyadii hadday aragto dhiigga way murugoon aabbo, ee maradana ka hagaajiso igu adkay xadhiga. imtixaan ka dambey muu jiraa. mididii buu qaatay. falamaa aslamaa, amarkii rabbi labadooduba. ismaaciilna waa isku dhiibay, ibraahimna waa fulinayaa. mididii markii uu qaatay, watallahu liljabiin, uu dhinaca midig u dhigay. culamada qaarkoodna waxaa dhinaca wejigu u dhigay, uu dul qabtay mididii. khalaas imtixaankii uu ka soo baxaya, uu ka soo baxay. wanaadaynaahu an yaa ibraahim qad sadaqta ru'ya. khalaas waad ku guulaysataa la yidhi nebi ibraahiimow,
imtixaankii waad ka soo baxday innaa kadalika najzi almuxsiniin ina hada lahuwa albalaa'u almubiin waa imtixaan adag buu ilaahay leeyahay nebi ibraahim waa ku guulaystay imtixaankaasuu ka soo baxay nebi ibraahim calayhi الsalaam wuxuu arkay nebi ibraahim dadkii camaaliiqdii oo meeshii aada ugu soo batay markay biyihii iyo arkeen meeshii bay soo degeen waxaa yimid qabiilo caraba oo jurhum la yidhaahdo oo yeman bay ka yimaadeen iyakuna nebi ismaaciil calayhi الsalaam aad buu u koray ibraahim dib buu u noqday xaggaa iyo filistiin qabiilkaasuu la koray nebigii adhiguu la eegayey af carabiguu ka bartay gabadh bay u guuriyeen hooyadii haajarna way dhimatay nebi ibraahim calayhi الsalaam mar walba waa soo mari jiray siduu uga warhayo ilmihiis waxa uu arkay nebigii oo maqan ismaaciil oo maqan ayuu gurigii yimid haweenaydiibuu weydiiyey ku yidhi aawey ismaaciil waxay ku tiri uu maqan yahay maciishadiina ka warran buu ku yidhi saad u nooshihiin wallaahi nolol cidhiidhiyaan ku noolnahay bay tiri nolol raashin fiican ma helno oo way dacwiday nebi ibraahim baa ka yaabay sabir berideeda say tahay waa guri waxa ay soo gashay ambiyaa inay carruur dhasho tani u dhasho nebi ismaaciil raalli kama noqon waxa uu ku yidhi marka uu yimaado ismaaciil salaan iga gaarsiiye waxaad tidhaahdaa catabada albaabka iska beddel markuu yimid ay arrintii u sheegtay uu fahmay inuu aabbihii ahaa oo u jeedo haweenayda iska fur wuu iska furay haweenay kale ayuu gursaday waa yimid mar labaad haweenay fiican bay ahayd isaga oo maqan ayuu yimid mar labaadkii uu weydiiyey maciishadiina ka warran waxay tihi wallahi khayr baan ku sugannaho nimcad ilaahay oo tii labaad si wanaagsan bay u sheegtay iyo khayrka waxa uu ku yidhi ismaaciil markuu yimaado waxaad tidhaahdaa catabat albeyt ilaali way kala raageen muddo kadib ayuu yimid inankiisii oo laabganaya oo baranaya ayuu u yimid wuu la joogay ilaahay baa waxa uu amray inay dhisaan gurigii kacbadii in la dhiso nebi ibraahim iyo nebi ismaaciil ayaa dhisaya kadibna ilaahay wuxuu amray nebi ibraahim inuu dadka u dhawaaqo inuu qayliyo yidhaahdo dadow ilaahay wuxuu ini amray inaad xaggan u soo xajidaan ee soo xajiya ilaahay subxaanahu wa tacaala waxa uu ku arsaaqay ismaaciil haweenadii dambe u guursaday 12 wiil ayay u dhashay 12 kaasi kolba marba wiil baa dhalanayay 12 qabiil ayaa ka tafiirmay way faafeen marka waxay u kala dhoofayeen yaman iyo shaam iyo masar meelahaasoo dhan bay ku kala baaheen qabaa'ilkaas iyo awlaaddaas waxaa ku sugnaa maka laba awlaaddaas laba umaa ku sugnaa naabit iyo qaydaar oo ina ismaaciil ahaa maka ayuu iska deganaa xaggaasuu ku tafiirmay awlaaddiisii waxaa ka mid ahaa cadnaan waa awowga 12aad nebiga aftirsimadiisa markaa nasabkiisa awowga 12aad ayuu imanayaa nebigeenu wuxuu yidhi salى اllahu عalayhi wasalam ina allaha اصطafىa min waladi ibraahim ismaaciil ilaahay waxa uu ka doortay awlaaddii nebi ibraahim ismaaciil iyuu ka doortay واصطafىa min waladi ismaaciil awlaaddii ismaaciilna waxaa laga sii doortay kinaana buu nebigu yidhi calayhi الsalaaةu wasalaam واصطafىa min kinaanana wuxuu ilaahay ka sii doortay quraysh
واصطفى من qurayshna wuxuu ilaahay ka sii doortay bani haashim واصطفاanii min bani haashim ilaahay wuxuu iga sii doortay anigana reer bani haashim baa ka dhashay xadiiskan imaam muslim ayaa soo wariyey riwaayo kale waxaa ahayd in allaha khalaqa alkhalq ilaahay khalqiguu abuuray waxa uu ilaahay iga dhigay firqadaha khalqiga ay ka kooban yihiin jamaacaadka firqadda ugu fadliga badan ee ugu khayrka badan ayuu ilaahay iga dhex doortay uma takhayara alqabaa'il kadibna ilaahay qabaa'ilkaas ayuu ilaahay iga sii dhex doortay fajacalanii min khayri qabiila qabiilada tii ugu fiicnayd ayaa layga dhex doortay uma takhayara albuyuut kadibna ilaahay guryihii ayuu sii dhex doortay fajacalanii min khayri buyuutihim guryahooga guriga ugu fiican ayaa la iga soo dhex doortay buu nebigu yihi calayhi الsalaatu wassalaam faana khayruhum nafsan wa khayruhum beyta aniga uguna fiican buu nebigu yihi uguna guri fiican buu yihi nebigu calayhi الsalaatu wassalaam wakaa muxamadu rasuulu اllah rasuulkii ilaahay wakaa muxamed ibni cabdillaahi ibni cabdilmuطalib ibni haashim ibni cabdimanaaf ibni qusay ibnu kilaab ibnu mura ibnu kacb ibnu lu'ay ibni haalib ibni fihr ibni malik ibni nadr ibnu kinaana ibnu khusayma ibnu mudrika ibnu ilyaas ibnu mudar ibnu nizaar ibnu macad ibnu cadnaan sala allahu calayhi wasalam cadnaana biitifaaqi alculamaa waa min waladi ismaaciil awlaaddii nebi ismaaciil weeyaan calayhi الsalaatu wassalaam nuurkaa muxamed calayhi الsalaatu wassalaam ayuu ilaahay inoo doortay oo rasuul inooga dhigay calayhi الsalaatu wassalaam nuurkaas ayaa la yidhi isagaa mucallin inii ah wax ini baraya ku dayda maxaan ka naqaanaa nebigeen haddaba calayhi الsalaatu wassalaam nasabkiisa ayaa garan awooyaashii ayaa garan adeeradii ayaa garan idooyinkii ayaa yaqaana ma naqaano ayuha alikhwa jaahiliin baan ka nahay nasabka nebigeenna maxameda waxaan ka garanayna male haweeney baa waxa ay tidhi qisas baa jira dumarku ay maarata hadda nebigu iyo ilaahay maxay isku ahaayeen yani wax alla waxay ka garanaysa male nebiga iyo ilaahay maxay isku ahaayeen waa xagga aan ka taagannahay diinkeenna maxaan maanta ula yaabaynaa marka aan maqalno nin gaala oo nebi moxamed caayaya waxaan ka garanayna male nebi moxamed calayhi الsalaatu wassalaam innaka oo muslimiina waxaan ka garanayna male bal maanta shabaabkeena way caayaan nebigaaga waxaa ku samee saasay yidhaahdaan si yaro fudud nebigaaga waxaa ku samee markaad tirahda maxaa nebiga waa caayad waan ku jabsanayey buu ku leeyahay waan ku jabsanayey ayuha alikhwa duruustan waxay noqon doontaa duruus aan isku imtixaanno inagu badini maayo jumcaha dambe ayaan xaggaa ka qaadi doonnaa hadduu ilaahay yidhaahdo wabiاllahi towfiiq وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم الرحمن الرحيم أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا شريك له لا إله إلا هو وإليه المصير اللهم ما أمسى